Deeqdan ayaa waxa ay ka kooban tahay sokor, saliid, bariis, baasto iyo timir, waxaana loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan ilaa 240 qoys oo laga soo kala xulay afarta xaafadood ee magaalada Jowhar, kuwaas oo u badan danyarta magaalada. Deeqdan ayaa waxa ay ka timid walaalaha Brothers and Sisters oo Ramadaan waliba ka qayb qaata caawinta dadka danta yar. Qoysaskan maanta ka faa'iidaystay deeqdan ayaa sidoo kale kaga gudbaya bisha barakeysan ee Ramadaan maadaama aysan awoodin inay helaan anfurkooda. Qaar ka mid ah culimooyinka magaalada Jowhar, waxgaradka iyo qaybaha bulshada ayaa waxay ka mahadcelin deeqda maanta la gaarsiiyay danyarta magaalada Jowhar. intaan in ka badan Allah u siyaadiyo, cadowgana Allah ka qabto, ummadana saan Allah ka wada dhigo wixii wax haasto inay saan wax u gartaan oo wixii ay ku tari karaan dadka masaakiinka cuuryaanka iyo amoolada iyo naafado inay dadkan walaalaha waxay sameeyeen dadkan hadda waa dad yar lamarkooda iska yar bal arag afar soo cidii intaan xiriirisay haddii inta maanta gobolka Shabeellaha dhexe degan ay la mid noqdaan waxaan u maleeyaa dadka in naafada ama agoomanka aaday ay u dabacsanay xaq waxbarasho xaq nolol ilaaha nolosha haya dadkan dad ku dasta Allah naga dhigo qof walba itaalkiisu sadaqada ma yaraato mana weynaatee dad garta Allah naga dhigo hadalkeed meeshan ku soo koobaa hum linnaas dadka waxa u khayr badan kan dadka wax taruur nabiga kaleey salaam waa markii ugu horeyso oo walaalahan wax bixinayaan aan ka soo qayb galo saddex qaybno ay iga horeysay sidoo hadda sheekheena Sheekh Xasan aadan noo sheegay oo waa ramadaantii afraad ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ugu baryaa walaalahan waxay baxsadeen miisaankooda Allah u saaro awlaadoodii ayagaba Allah ku dhowro waan ogahay waxay soo dhiibeen waxay ayaga markaa jecel yihiin qaarkooda isla markaas awlaadooda iyo familkooda u baahan ayay ka soo qaadeen ayay siiyeen walaalahooda gaajaysan ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamay wayu'thiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa aayadaas ilaahay wuxuu ku ammaanay dadkii muslimiinta ee naga horeeyey gaar ahaan weliba saxaabada loo yaqaano ansaar loo yaqaano ilaahay ku ammaanay 140 qoys oo masaakiin ah dad curyaamiin ah dad aan ilmo lahayn ah oo waayeelo ah in la siiyo raashin afura la siiyo qof kasta waxaa la siinayaa 12 kiilo ee bar sokora 12 kiilo ee bar bura 12 kiilo ee bar oo waxa ah maxay bariis ah 10 kiilo baasta 3 kiilo timira 3 litir oo saliid la siinaa waxaana bixiyay raashinkaas oo sadaqaystay walaalaha Jowhar Brothers and Sisters wiilal iyo gabdho ayaa bixiyay waana ramadaantii afraad oo ay bixinayaan waa marka ilaahay ajri xasanad ayaga ka siiyo walaalahooda ugu deeqeen ilaahay maxay ahayd caafimaad ha ku siiyo ramadaantan ilaahay maxay ahayd soonkooda ugu fududeeyo waa kaalmo waana maxay ahayd u soo niyeysteen walaalahooda reer Jowhar way ka timid reer Jowhar waxayna ku socotaa reer Jowhar marka ma aha qabiilku ma dhisna dadka waxay ku dhisan yihiin maxay ahayd reer Jowhar aanay ku dhisan yihiin muslimiinta ku kaalmeynayaan walaalahoodii ku kaalmeeyaan waxba haysanin oo afarta xaafadood kala degan waa 240 qoys oo xaafad kasta ay degan tahay 60 qoys afarta qoys xaafadood ay magaalada ka kooban tahay xaafad kasta 60 qoys ay degan tahay ayaa la siiyay waana sida hore u soo sheegay waa ramadaantii afraad Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani Hirshabelle TV Jowhar.